دايما ولو dadkayaga hagu dibadiya dalkaba u dabaalsamo daadano hadee daa'imo allo qalbi daacado samaka dalbada adeeqsiyo degdeg ugu hure noo ajiib ducada faqri iyo dayari allow naga dubo dagalkiyo arlada noo doojiyo dalka noo nimcee faqri iyo dayari allow naga dubo dagalkiyo arlada noo doojiyo dalka noo nimcee eebow degmada khayraadka diin noo dilaaciyo dulahaan islaam dayrkii ahaw eebow degmada khayraadka diin noo dilaaciyo dulahaan islaam dayrkii ahaw daa'imow allo qalbi daacado samaka dalbada adeeqsiyo degdeg ugu hure. بناء على توجيهات رئيس جمهورية سوماليلاند ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث وتأمين الغذاء نادفور، نشكر منظمة الملك سلمان، ونشكر حكومة ولي العهد المملكة العربية السعودية، ونشكر هيئة الملك سلمان للأعمال والإغاثة الإنسانية. ونبدأ البرنامج في منطقة سول إقليم سرار. المنطقة الأولى نبدأ في 6 مناطق. المنطقة الأولى هي في إقليم أو مدينة عينبة 250 أسرة إن شاء الله. ونشكر حكومة سرار في حسن الاستقبال وتهيئة الأجواء والتأمين، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. أولا إله ما مهله مرحبا وحنا مهد علينا مسؤولين تقولك وجهر يبرا سابك حوي يعني ميرك دقمده حقيها مسؤولين تكلاس كسعودة يعني حوي إسلا قبلك يعني مسؤولين تجدون كسعودة هاي نادفورد وجهر حوي عبد الله يو عبد الفتاح وكسعودة يدون بقر سلمان يعني كينجي أيانو مهد علينا sida runtii maanta waxaanu dahfuraynaa oo aynu halka joognaa qaybinta raashin dhan 900 qoys ayaynu maanta ku dahfuraynaa Caynaba. Runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Sidoo kale waxaan iyadana halkan aynu markan dahfurkan idin og wadaamagooy dhanaano ceelal iyo waridaad oo aynu halkan dahfurkiisa hadda aan joogno. runtii waxyadoo kale sidoo kale waxaan mahad celinayaa mas'uuliyiinta hay'adda Nafar ugu horeeya gudoomiyaha hay'adda Faysal Cali Sheekh oo runtii ku soo tabarucay iyo hawsha maxay ahayd tolay nagala shaqeeyay sidii hawshaas u fuli lahayd. iyagana aad baan mahad celinayaa. runtii dhammaan bahda saxaafadan iyadana aad baan mahad celinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mucaawadan qiimaha iyo qaahala runtii oo ah mid loo baahnaa maanta oo waqti shiiraal lagu jira dadkuna abaarsan yihiin oo dhibaataysan yihiin runtii ayay ku soo beegantay iyo waqti rabadaana oo waqtiyadii sadaqadu jaarigi maartay ay macquulka ahayd. sida awgeed waxaan u mahad celinaynaa cid kastoo ka soo shaqaysay mucaawadan runtii ilaa hay'adda Nagfor madaxdeeda iyo shaqaalaha hadda la soo gaarsiiyay gobolka soo gaarsiiyay. waan u mahad celinaynaa kulligood. waxaana Ilaahay idinka jazasiiyo cid kastoo maartay gacan ka geysatay. runtii waxa weeyaan maanta dadka halkan wax loogu qaybinayo ee gobolkan Saraar xaruntiisa ayaan joognaa maanta dowladda hoose oo ah qaybtii degmada Caynaba iyo gaarkeeda ahayd. degmooyinka kalena waa loo gudbi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. bada saabka iyo maayarka iyo mas'uuliyiinta degmada iyo gobolkuba iyagana waa mahad celinayaa runtii qaabo weyn bay ka galeen iyo nidaamkaas uu hirgeli lahaa. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay waqti runtii aad loogu baahan yahay baa lagu jiraa. iyagana waxaan leenahay wixii kale Ilaahay u soo dhiibana beesha ugu habboonad weeyaan. ajar iyo xasanaad waa laga helayaa. wixii kale awoodaana waxaan idinka codsanaynaa inaan maartay soo gaarsiin inta bisha Ramadaan lagu jiro
وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقرين إلهي بينو مهدنقين عز وجل أمنيقا إيا نبادقليدا إيا إسلام نمدا رنتي أينو هايسانو ومهدنقو ويان كالمدو رنتي نانو مهدنقضو محسنين تا شرفتي قيمة هالي رنتي صاح حصي بوشدن قبل كسرار قودهان إيا قارهان مانتون عينا بتشوقنو سيدا مسؤولين تيقو الرئيسي أي شاكتي وحورتي ومالين لو آدلو قباهي بدن يهي رنتي باهيدا بيهونا رنتي أيدونا تشكتو baahida ii sheegeen cunno yaraantuna iyaduna ay jirto iyo abaaraha soo dhan marka insha Allah taala iyagana waa ducaynaynaa qof kasta oo ka soo shaqeeyay u soo safray kii dhaxmaray dadka kii soo qoray kii waxaan kule u safray kii u fakiray intaba insha Allah taala ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxa weeyaan intaas baan ku soo koobaynaa marka jazaakallahu khairul jazaa dhammaan maayarka isduwaha bahda saxaafadda shaqaalaha ka socda hay-adda iyo ciddii soo bixisayba waxaanu leenahay mahadnaq ilaahay ka bacdi aad baa u mahadsantihin baan leenahay sadaqadda aad soo bixisayna maanta waa wakhti ay ku habboon tahay oo dadku sooman yahay oo lagu jira xilli jilaal ah ayay soo gaadhay dadka waxaana leenahay ciddii soo bixisay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro sadaqaduna waxba ma yaraysay wuxuun bay kordhisaa cid kasta oo muuqaalkaa arkaysa ay hay-addaasi soo bixisay bin salmaanna uu ku soo tabarucay aragta sida loo qaybinaayo waxaanu iyagana ku baraarujinaynaa iyaguna meeshan aan lagu qaybinayo waa meel u baahan oo xaaladaheedu iyo abaaraheedu ay iska jiraan sidaa daraaddeed waxaanu leenahay ku dayda oo idinkuna sadaqadu waxa ma yaraysa wax bay kordhisaa intaa ka bacdi waxaan u mahad celinaynaa annagu cid allaale iyo ciddi ka soo shaqaysay ee ugu horreeya maayarku ee sida habsamida ah ee xulashada ah ee habboonaanta ah dadkii ku habboonaa soo qoray oo iyagana waa uga mahad celinaynaa waxaananu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro waana ku mahadsantihiin cid kasta oo ka soo shaqaysayna waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro waxaanay ka bilaabmi doontaa haddii allahu yidhaahdo maanta waa caynaba waxaa ku xigi doonaa degmooyin kale oog wadaamago meesha loo yaqaano waridaad iyo ceelal iyo dhanaano intaana waa la gaadhsiin doonaa insha allahu tacaala iyagana waxaan rajaynaynaa in sidaa iyo si ka wanaagsan oo nabadgelya ay ugu dhammaan doonto wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يتم التوزيع في منطقة في إقليم سول منطقة مديرية سرار مدينة ودمرقو يتم توزيع 130 سلة ونشكر الجهة المنفذة هي هيئة الكوارث وتأمين الغذاء في نادفور بالتعاون مع شركائنا في هيئة الملك سلمان للأعمال والإغاثة الإنسانية للإغاثة والأعمال الإنسانية وشكرا جزيلا. waxaa degmada wadaamago noogu yimi oo raashin lagu soo gaarsiiyey hay-adda kaydka raashinka iyo aafooyinka qaranka iyo boqor salmaan runtii iskaashanaya runtii waxay nagu wareejiyeen oo halkan idinka muuqda 130 qoys raashinkoodii oo dhammaystiran annaguna waadaanu nahay maamulkii degmada wadaamago gaar ahaan maayarkii degmada waxaanu ka guddoonnay alaabta loogu talagalay dadka danyarta inay soo gaarsiiyeen waanu ka guddoonnay waanu ku soo dhaweynaynaa inay haddii ilaahay ka dhigo dadkooda danyarta ay u gargaaraan sida runtiina maaha waxaanu wax haddii ilaahay ka dhigo waa waqti kasta oo haddii ilaahay ka dhigo bishan rabadaan iyo waqtiyada kasta oo ay dalkan soo food saaraan xaalada abaareed oo waanu ka helnaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida runtii say bulshadooda ugu damqadeen haddii ilaahay ka dhigo u soo gaarsiiyeen raashinka halkaa idinka muuqda annaguna waxaanu insha allah ballan qaadaynaa inaanu bulshadii loogu talagalay waxa aanu gaarsiin doonno oo dadka halkan dabadeena tuman ay yihiin waanu sidii loogu talagalay u qaybin doonno si cadaalad iyo dadkii jilicsanaa loogu talagalay arrintaa inaanu u qaybin doonno sidii loogu talagalay ay dee hay-addu ugu talagashay
barnaamijkii loogu talagalay in loo qaybiyo dadkii loogu talagalay in la gaarsiiyo baan gaashiinaa taasaan idinka ballan qaadaynaa madaxda hay'addana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa si gaar ah idinku mahadcelinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida runtii waxaynu joognaa wejigii labaad ee raashin qaybinta ay bixinaysay hay'adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka wejigiisii labaad aynu ku daahfurnay degmada Wadaamagoy oo runtii waxaanu soo qaybinay degmada Caynaba oo ahaa waxa weeye 250 qoys saan horeba u sheegay guud ahaan raashinku waa 900 qoys 250 qoys oo degmada Caynaba iyo degmada Wadaamagoy aynu hadda joogno oo ah 130 qoys ayaynu wejigeedii labaad joognaa hadda insha Allah tacaala waxaanu Wadaamagoy iyo dhanaano wardaad iyo ceelal baan noo hadhay intaana biidmillaahi tacaala inaanu maanta iska dhamaystirno ayaan rajaynaynaa runtii waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka injineer Faysal Cali Sheekh oo runtii hawshan waxa weeye soo gaarsiiyay dadkiisa danyarta oo runtii ah gudoomiye la dareenaha dadkiisa sidoo kale iyadana waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa una bogaadinaya hawlwadeennada ka socda hay'adda Nordford maxay hay'tooday ugu horeeyay walaalkay Xamse Qurbaani Cabdi Fataax iyo Cabdallah oo Cabtaax oo ka socda shirkadda Boqor Salmaan rudiyana mahadcelinayaa sida wanaagsan ee haqlida ay noola shaqeeyaan runtii aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh